waxaynu halkan ka isugu nimi madashan qiimaha badan in aynu kaga hadalno arrimo ayaamaha socday oo deegaanka ku soo kordhay kuwaasoo ah kuwa waxyeello badan u geysan kara halganka iyo qarannimadeenna aynu ku jirno taas oo aynu doonayno inuu kaga hortagno cid allaale cid kasta oo majaxaabin ku wada oo la soo adeegsaday dadkaasoo ah dad deegaanka ka tirsan halkan markaa waxaynu galabta kaga hadlaynaa inaynu af iyo adinba aynu sidaan uga hortegi lahayn oo u ciribtiri lahayn inaynu kaga hadalno haddana waxaan kusoo dhaweynaynaa odayaasha degmada iyagana ka hadli doona اللهم صل على سيدنا محمد والسلام يا قولها يا خيارته ماشي سقوط السلام عليكم ورحمه الله وبركاته waxaan filayaa dadkan wuxuu isugu yimi arrin ku soo korodhay oo degdeg ah arrinta ku soo korodhay oo degdeg ah waxa weeye wiil la yiri wuxuu ka soo rogayaa qaad meesha la yiraahdo airportka sayid maxamed cabdullahi xasan magaalada degmada Taleex wiilkaasi waxa la yiraahdaa ina Saciid aw Cabdi baan u niqin barigii hore ina Saciid aw Cabdi waa nin reer Taleexa oo la yaqaano aabihina waa la yaqaanaa Allah u naxariisto nin gobaha oo sheekh ah wax badan dalka ka qabtay buu ahaa wiilkaasi bariyahan uu ka baxay dhalashadiisii iyo tii aabe iyo tii qabiilba wuxuu u wareegay nimanka la yaraahownada Hargeysa dega Musabbixi buu magaca ku darsaday ina Musabbixi baa la yiraahdaa la yiri qaadka uu ka shaqeynayana Musabbixi baa leh waa la og yahay awal baale oo nimanka reer Arab oo Musabbixi uu madaxda u yahay isaguna dhinac fadhiyaayo ina Musabbixi baa la yiraahdaa buu yiri wuu dafiray qabiilkii iyo dhalashadii haddii qabiilkan yahay ama ka dhasho dadka meeshan jooga dhibtu la qaybsan lahaa oo xabadu soo gali lahaa oo dagaalku soo gali lahaa maanta adigoo ina Musabbixi oo Hargeysa jooga ina tiraahdo Taleex baan qaad ka rogayaa waa ku ahaatay waa heeray ku gaadhay waan maqlayay waxaan kala maqlayay inaad ceebaynaysid rag badan oo reer Taleex oo jamaahiirta ah oo dagaalka ku jira kuna dhintay kuna dhaawacmay aad tiri anay wakiil yihiin oo wakiil baan u samaystay inay qaadkayga ka shaqeeyaan adeer kuwaasi ima Musabbixi maaha uma naqaan anagu adaan ku naqaana ina Musabbixi haddaad adigu من قيمة تهاي أنت مسبح يا هرجسة كسوها لسيد تلح واتقانة كاري صاقلوا إمو كسودك وحنا هاي من كاسي ومنافق كواحد جود بيتقن كأيو دار الشرع ملكستو وشوجو ملكستو كسوقلوا ذلك هرتي أما دارود وحنا هاي هلبه سوا قيبين وصد بالوتر يا ومنافقين تهرو كم ديهايو نمان كراعي وحنا صادر صدي Musabbixi oo yiri adeeriga mashquul iyo diyaaradan lacagteeda ku qadimay ka rog laascaan Taleex waan ogahay warkii waa la ogyahay reer Taleex ama dhulbahanta ama harti waa ogyahay warkaaguna waa yimi oo meel walba waa joogaa hadal kale anagu ku oran mayno haddaad reer Taleex tahay ama ina Muuse ina sheekh aw Cabdi tahay ina Saciid aw Cabdi tahay Taleex waa taqaanaa kaalay Muuse haag fadhiyeen ما قرأتي هديك كلا وين يسوقنا هاي واسكا ورهينا موسى مالك وجيو مرة يوم لبض اللقوة موسى كل حجر هذا مرة تلفون تصدر تحضر ديرات بنقرأ يا ماش وحين لقوا درا يا واحد قواني سدوا ونوقنا وأنا كورهينا لو حين يود بارحقوا استعمالها يا ننقو وطلع كارك مركزات ننقو عن يساي هذا موسى كصدر صدق أقل كيس كتيرة وقرقي سمايرة إن ما تتراه تراه ديرات كروية نو وحنو قادن كرينا معها وواح شرفت قبيل ككوت لكن جناسنا وانا جحاران wax ganacsi la yiraahdaana dhulbaante ama dhulbaanta waa ka haaraan maanta waad ogtahay dhulku laga ganacsan jiray iyo meesha ganacsiga socday inta lagu gubay oo Muuse gubay ma garatay nin dhulbaanta maanta wax gadig jira ma jiro ilaa maanta dhulbaanta si nolol ama geeri noqdo daaroodna waxaan leenahay waa mahadsantihiin ama harti cidii noo soo gurmatay aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa walaalnimo iyo dhaqan iyo dhalasho aanu leenahay baa isugu nimeeyay magacyo ma kala lihin dad baan arkay meediyaha ka hadlayo la yiraahdo harti baa noo soo gurmatay harti waayo daarood waayo dhalashaynu nahay dad wada dhashay baynu nahay waxaynu jid isugu leenahay las'aanada inaga ale dhaqanka iyo dhalashadana inaga wadaagna cid oran kartaa ma jirto waa loo sugan weyn wada leenahay hawlanu leenahay baynu wada qabanaynaa
ninkii xad ku xadgudba dhaqankeena iyo dhalashadeenna qabiilku doonaya magacu doonaa sheegtay dil buu ku xukuman yahay barta oo ugu horeyso lagu qotaana lagu gogoynaya anigu intaasaan hadalka kaga baxaya waana mahadsantihiin odayaal kalena waa iga dambeynaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu shirka iyo munaasabadda aad iyo aad loo soo agaasimay waa salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan ka bacdi ujeeddadu waxay ahayd in saxaafadda la qabanaya ujeeddadoodu waxay ahayd in la fuliyo go'aamadii ka soo baxay 33 guddida ahaa ee ka talinta SSC go'aamadii ka soo baxay in la fuliyo ayay ahayd shirka kan munaasabaddan la isugu yimi iyo garaadada 33 waxay go'aamiyeen in haddii abriil la gaadho 15keeda in aan wax dhulkaasi ay mari karin gaadiid ah oo u socdo waqooyi iyo wax ka yimaada toonna hawaduna waa la mid wey hawaduna waa la mid waxa ujeedkeedu yahay oo aan u sheegaynaa cid walba u sheegaynaa oo kuwa dabada ka wada iyo kuwa horgalka u ah baan u sheegaynaa wax diyaarad la yidhaahdo oo inta xaaladdaasi taagan tahay ma amar dambe la soo saari doono ee dhaddee wax diyaarad la yidhaahdo oo halkaa garoonka taleex ka soo degi kartaa inaayan jirin oo aan ogol lahayn inayan jirin waxay amar ku haystaan bulshada reer taleex jamaahiirtu dhallinyaradu waayeelku haweenku carruurtu waxay amar u haystaan haddii diyaaradii halkaasa soo taagto oo cagaha dhulka soo dhigto ama kuba soo dhowaato dhulkaba inay hawada lagu ololiyo in la ololiyo inaayan kicin sidii odayaashii horeba sheegeen hadday fadhiistaana inaya kicin hadday soo dhowaatana in la olosho ha iskaga khasaarinina hantidiinna ha iska khasaarinina diyaaradaha dalkale iyo shirkadaha waxaan leenahay ha ku biimaynina diyaaraddaasi noqon mayso hadday timaaddo ha ku xisaabtamayna ma ogolin oo ma ogolin wey waa soo sidaa ma aha in la gubo diyaaradaasu hadday timaaddo cid kastaba ha wadatay hadday timaaddo in la gubo soo iskuma raacsanin inaayan nabadgelyo ku noqon soo iskuma raacsanin saasaanu caalamkana u sheegaynaa diyaaradaha u sheegaynaa garoommada u sheegaynaa reer SSC u sheegaynaa Soomaaliya oo dhan u sheegaynaa wax diyaarad leeyahay meel kastaba ha ka timaado ama Hargeysa ha ka timaado ama Uganda ha ka timaado halkaa wax diyaarad leeyahay qaad sida inay maanta halkaan u iman ilaa inta xaaladdaasi sidaa u taagan tahay go'aan baanu ka gaadhnay nin waliba si ah u ogaado nin walba ha ku xisaabtamo ka horgalka ah oo hadduu doon noqonayo reer taleex noqonayana go'aan baanu ka gaadhnay bartiisa in lagu gubo sida diyaaradda lagu gubo ninka horgalka ah oo reer taleex oo haddii baan odhanaya anaa horgala oo anaa geynaya qaadka anaa geynaya anoo dhabar jabinaya waxaa weeye kaasuu noola mid yahay haddii la dirina mag ma leh wax male muu leeyahay ma leh cid isku qabsanaysaa ma jirto ninka maanta bumbo noogu soo dhex tuuraa waxaa weeye kuwaasuu noola mid yahay garaacaya lasacadood garaacaya oo maatada baabiiyey waxaan ku soo gabagabaynayaa go'aanka iyagu waxaa weeye diyaarad imaanaysaa ma jirto iyo midaan ogol lahay todhiyo midaan ogol lahayba inta xaaladdu sidaa u taagan tahay ama sharci kale laga soo saari doono waxa xidhaya garoonkaas waa xidhaya siisaba waa xidhan yahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu muqaashii culimaaudiinkii waxgaradkii dhallinyaradii bulshada qaybaheedii kala duwanaa dhammaan way ka muuqdaanoo way ku dhan yihiin shirkanna shir baa ka horreeyey shirka kanna waxaa laga sheegayaa go'aankii kaa lagu gaadhay kanna la yskaga raacay waxaana weeyaan sidaa la sheegay inay soo korodhay ayaamaha kan diyaarad la yidhi way soo socotaa oo qaad bay rabtaa inay ka soo rogto degmada taleex diyaaraddaas oo salka ku haysa sida la sheegay magaalada Hargeysa waxaa deegaankan iyo dadka kale go'aan ku gaadheen inaan diyaaraddaas ka soo degin degmada taleex waxaa dadka diyaaraddaani loo sheegayaa waxaa dadka mas'uulka ka ah loo sheegayaa waxaa dadka ka dambeeya loo sheegayaa diyaaraddaa in hawada diyaar loogu yahay inaanay ka soo degin waxaa diyaar loogu yahay dhulka hadday fadhiisato inaanay ka kicin sidaasaa diyaaraddaa go'aanka laga gaadhay uu yahay cid kastoo ay qusayso diyaaraddaa arrimaheedu intaasaan u sheegaynaa war sow sidaa ma aha sow sidaa iskuma raacsanin diyaaraddaa inaynu hawada diyaar ugu nahay inayan ka soo degin hadday ka soo degto dhulka timaadana inayan ka kicin sow sidaa diyaar uguma nihin waxayna tahay waa la maqlayaa
waxaanu kaloo gaadhsiinaynaa inaan laalay intii naga mida ee dalka daafihiisa iyo dibaddiisaba joogta ee arrintaasu qusayso baanu arrintaa gaadhsiinaynaa cid waliba halka kaga beegan inay ka gasho ayaannu gaadhsiinaynaa inta naga mida dalka ha joogto dibadda ha joogto meel kasta ha joogo arrinta talo ay qusayso sidaasaannu iyagana u gaadhsiinaynaa abbaarta kaga beegan inay ka qaataan diyaaraddaasna maanta maaha maalin feedh buu yidhi maanta maaha maalin ganacsi weeye waxaa la yidhi ninbaa waxaa la yidhi hebel baa ku caayay baa la yidhi waa hebelay hore isu dileen oo isdilayaan wuxuu yidhi col baanuba ahayn buu yidhi col baanuba ahayn waxaa la yidhi diyaaradda tan waxaa wada nin hargeysa joogay ka soo jeedaa oo hargeysa dee haddeer col baanuba nahay haddaan soomaalinima noo damayno dib ayaan u dhex doonin maanta col baanuba nahay maanta dad kala ganacsan kara iyo dad wax kala iibsan kara toona maahayn intaasaannu u sheegaynaa diyaaraddaa iyo arrimaheeda iyo taladeeda iyo go'aankeedu halkaasuu naga yaal bulshadaasna halkaasuu ka yaal jamaahiirtii waa maqlaysaa fuqaashii waa maqlayaan culimaaudiinkii waa maqlayaan odayaashii waa maqlayaan bulshada qaybaheeda kala duwan waa maqlayaan sidaasaa diyaaraddaa go'aankeedu nagaga gebagabaysan yahay cid waliba ogow cid waliba la soco wasalaamu calaykum qaadka la yidhi taleex baa laga rogayaa iyadoo oo dhulbahanta oo dhan meeluu joogaba uu iska daayey shaqo iyo inuu shaqaysto iyo inuu ganacsado dhinacna uu wada jeedo midoobay alxamdulillahi rabbil caalamiin dagaalka maanta uu nagu soo qaaday yasin nagu soo qaaday harti bay midaysay dhulbahantay midaysay laba saddex qof oo daba dhilif oo caadaqaata ahi waxba noo yeeli maayo wax alaale wuxuu naga dhimayaa ma jirto marka waxa weeye arrintaa aan hadda isugu nimid dadkii deegaanka odayaashiisii mas-uulka ka ahaa baalanka ka hadlaya waxaanu caddaynaynaa inaan halkaa diyaarad ka soo degi karin oo ayan mashquulin karin oo ayan ishortaagi karin gurmadka iyaga iyo dagaalka aanu kula jirno muuse biixi iyo waxa cabaasada marka waxaan ka hadlaynaa arrintaa weeye intaasaa isu kaaya keentay hiil hartina waxaan leeyahay ninka majeerteena ku dhimanaya laascaanood iyo ninka dhulbaxanta ku dhimanaya galgala waa isku mid dhinac baan u wada jeednaa waa arrintaa iyada ah marka waa in meel looga soo wada jeestaa diyaaraddaana waa in aan lagu soo lugo'in oo aan lagu soo hawshoon wakti waanu ka warhaynay in badanba waa la hadalhayey haddii ay timaaddo waxaa ma kacayso halkaasay fadhiyaysaa barteedaasay fadhiyaysaa marka intayan halkeedaa ku burburin oo ku kharaamin sida taalla gambadhe agtiisa haddeer bayay isku iman waa digniin saasaa looga digayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu waa salaamaynaa akhyaarta iyo waayeelka iyo waxgaradka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan oo halka isugu yimi waa salaamayin salaata islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ujeeddadu waa mid laba maaha saddex ma aha afarna ma aha sida odayaashu yidhaahdeen oo waayeelku yimi oo tirada laga gaadhay oo go'aanku yahay oo la midiidimay sidaa odayaashu sheegeen weeye sidaa laga hadlay weeye sidaa muuqata weeye diyaaraddaa laga shaqarinayo oo hargeysa laga soo wado oo ujeeddada laga leeyahay aanu garanayno oo ujeeddada aanu leenahay dhabar jebinaysaa midaanu yeelayno maaha waa duhur ninka haddeer diyaarad nagu soo wadaa waa nacas waa mid aan caqli lahayn ninka meesha joogoo dhulbaanta sheeganayana micnihiisa baanu garanaynaa waa matuul waa waraabowtaag laakiin mindida cid baa haysata ciddaa mindida haysatana waxa naga dhexeeya maanta waanu ognahay maalma iskuma khaldana ninka dhulbaanta oo maanta taleex laascaanood wax ka wadwadaa waa maryo ee qof maaha ganacsigana cid baale ujeeddadana cid baale muhiimadda laga leeyana waa garanaynaa dadka ujeeddada leh dad fara badan weeye oo caqli leh oo muhiimad leh oo micno leh oo micno badan ku fadhiya arrintaa diyaaradda reer saxsaaq wadaan oo muuse biixi wado dee waa hadduu ninka maanta u fikeri waa nacsimo dhabarjebin iyo dhaqaale iyo ujeeddo dhexgelina oo ujeeddada maanta daarood dhexgelinaya iyo harti waa mid liito weeye waa mid doqona weeye waa mid cawaana wax walba qofka kama iibsamaan oo kama maraan neef cataa sayad lama keeno sheeko soconaysa maaha sheeko iibsamaysa maaha
mid shaqaynaysa ma aha sidaa muhiimaddu tahay baan ula qabnaa diyaarada isma imaan karto indhaha lagu wada hayaa focus baa saaran inaan cabdi iyo inaan ciise cabdi iyo inaan ducaale dhulbahantiina maanta la socdaan nooma joogaan nin dhulbahanto maanta la socon tale hargeysa noo joogaa ma jiro cidda hargeysa wax ka wada waa muusena annaga maaha wax naga dhexyaan maawle waa idin salaamaynaa bulshada qaybaheeda kala duwan salaamu calaykum maqalay arrimaha laga soo dhoobay hargeysa iyo nawaaxigeeda oo muusabixi marba dhinac uga wareegayo mayna kaahin marba dhinac looga wareegayo diyaaradda la leeyahay haddii alla qadarkeeda leeyahay waxay soo qaadaysaa qaad oo keenaysaa taleex iyadoo halkaa uu ka wato dhabar jabin waxaanu leenahay diyaaradda ciddii lahayd waxaanu u diraynaa inaanay isku iman meesha hadhow wixii soo gaadha gaalo iyo muslim cid kastaaba hala ahaatee annagu waxaanu leenahay waryay isku iman haddii annaka ay noo timaado waxaanu hayno annagu dib uga dhigan mayno waa duqaynaynaa waa jajabinaynaa hadeerba waanu u sheegaynaa haddii alla qadarkeeda le waxaanu kala salaamayaa tolka loo soo gurmaday oo sida tooskaa loogu yimi oo garabka noo keenay iyo waddadaanu wada dhalnay iyakana aad iyo aad baanu u salaamaynaa warka iyagu wuxuu ku soo kooban yahay diyaaradda haddii ay noo timaado wixii ku dhaca annaku mas-uulka wa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu ujeeddada meesha loo yimi baa laga hadlay odaygii ugu horreeyey baa ka hadlay intuu yidhi baanu la qabnaa nuxurkiina isagaa taabtay waxaanu leenahay nin jubitaawi la yidhaahdo baa waxaan ka maqli jiray warta suusta ma iga maqasheen suusto waxaan u malanayaa dee meesha suustaa marayay raggiisii kani waa qolof isagu in sida cabdi buu sheegtay laakiin waxaan aaminsannahay inuu qolof yahay maxaa la yidhahdaa hinjiinkiisa iyo aanay islahayn iyo qolofkiisu marka odayaashii inta horaan la qabnaa diyaaraddaasi ma imaan karto kama soo degi karto taleex buu u dhashay waa degaan taleex laakiin maanta maaha magac kale iyo inaya kale iyo degaan kale iyo weji kale uu samaystay in sacuud cabdi maaha weyna muusabixi saacaddaa laga bilaabo saasuu ku abtirsanayaa cid kasta oo halganka laasacaanood ka socda oo soomaaliina ninkaa ha ogaato sidaa ha lagu ogaado waxaanu leenahay diyaaraddaas ma imaan karto cid kasta oo halgankaa ku jirta oo soomaaliya oo inta soomaalinimada jecela oo inta qarannimada jecela oo inta midnimada soomaaliya jecela oo SSC ka bilaabato oo harti ka bilowdo oo daarood ka bilowdo oo soomaali fara badan oo qabiil kasta leh ama meel kasta degdeg soomaaliya halganka qaybtooda kaga jirta iyo midnimada soomaaliyeed waxaanu leenahay waad mahadsantihiin baashani qabiil maaha waa xornimo soomaaliyeed waa soomaalinimo waa maxaa la yidhaahdaa bini aadanimo waa xalaalnimo ninkii meel kale u socdo ama yuhuud u socda ama u socda ummado kale aynan aqoon oo soomaali ama islaam ba ahayn dhinac baynu ka wadannahay waana ku mahadsantihiin cid kastoo halgankaa ka qayb qaadata annaguna deegaanka tale haddaanu nahay oo leeyahay diyaaraddaa kusoo wajaan dadka wax kale kama duwanina naf iyo maal xabad baanu la dhacaynaa iyada iyo wixii wata iyo wixii la socda iyo wixii soo socda sidii odayaasha hore yidhaahdeen ninkaasi hadday xiniyo ku jiraan isaga iyo muuse iyo wixii kala wadeegaya taleex ha yimaade garoonka sayid maxamed cali xasan ha yimaadeen hadday xiniyo ku jira markaasaa hadal dhammaanaya iyo fadhi ku dirire intaasaan ku kordhinaya hadalkii odayga odayaalkana way iga dambeeyaan aad iyo aad baad mahadsantiin cid kastoo halgankaa ku jirta yaan laynagu dhabar jebin yaan muuse shaar kale inoo soo gashan yuu dabaqoodhiyadii hore kuwa la mid a inoo soo dirin waxaan aad u ogahay in la yidhi lacagtii uu siin jiray dadkii hore uu khalday oo ahaa horgallada inuu yidhi mushaharkiina waxaan idinku bedelayaa qaadka la gadi maayo waxaa gadaya dadka la marar habaabinayo in walba 2 martuu 3 martuu baa la siinaya mushaharkaagii halkaa ka doono sidii aad dabaqoodhiga waxaa jirto noogu shaqee oo aduu dib u gado inuu sidaa yahay baan ognay qaadku yaan suuq la dhigan oo la gadayna mushahar loo bixinayo inkastoo cid kastoo halka fadhido ka soo qaybshay shirkan iyo maxaa la dadaalkan iyo warkan dhiilada leh oo waxa weeye maxaa la difaaca aad iyo aad bay u mahadsan yihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu